الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta waxaan joognaa magaalada Kampala dalka Uganda. halkan aad arkaysaan ee aan maanta taaganahay waa masjidka weyn ee jaamica ee loo yaqaan masjidka Muammar al-Qaddafi ama National Mosque. waa masjidka ugu weyn East Africa ama bariga Africa marka la yiraahdo masaajidda ku yaala. waa mid ka mid ah maclam ama macaalimta waaweyn ee muslimiinta ee magaalada Kampala ku yaala. waa astaan muuqata, astaan qaran ah oo dalka Uganda astaan qaran u ah, dadka muslimiintana astaan muslim u ah. masjidkan waxaa la dhisay waxaa la bilaabay waqtigii madaxweynihii hore ee Uganda Idi Amin. waxaa dhammaystiray oo si fiican u dhammaystiray madaxweynihii maasha Allah ahlan wa sahlan marxaba madaxweynihii Uganda, madaxweynihii Liibiya, hogaamiyihii Liibiya ee Muammar al-Qaddafi. waa mid ka mid ah masaajidda waaweyn waad arkaysaan. wuxuu ku yaalaa magaalada Kampala sida dadka soo booqda ay arki karaan. waxa way buuro aad u qurqurux badan bay ku taalaa. mid ka mid ah 7 buurood oo magaalada ay ku asaasan tahay, mid ka mid ah ayuu saaran yahay. marka aad Kampala timaado waxaad arkaysaa afarteeda gees buuraha ku yaala buur dheer inuu saaran yahay. marka waa masjidka waxaan isku dayaynaa inaan si fiican marka aad timaado qof kasta oo muslim oo meeshan oo Uganda yimaada ama Kampala waxaa fiican inuu soo booqdo ama soo arko. waxa way uu soo xiisayaa, bal iska dhaafay dadka dalxiisayaasha way yimaadaan, waa la soo tusayaa. dadka muslimiin ha ahaadeen ama dad aan muslimiin ahayn way ka soo qayb galayaan, masaajidkay imaanayaan, way macaalimtay daawanayaan. mararka qaarkood waxa u suurtagelaysa manaaradda dheer ee arkaysaan in ay fuulaan oo ay kor ay ka daawadaan quruxda magaalada. halkan waxaa ku yaal Lake Victoria. waxaa Lake Victoria dadka halka ayaad si aad u aragto manaaraddaad fuulaysaa. marka Lake Victoria soo sawiraysaa, hadday maqal kugu ahaydna kor baad ka daawanaysaa. marka ahla wa sahla wa marxaba insha Allah taala. dadka muslimiinta waxaan leeyahay masaajidka markaad timaadaan Kampala ugu yaraan 2 ragcadood waa inaad ku soo tukataan oo soo booqataan masjidkan. Allah u naxariista, ilaahay waxaan uga baryayaa inuu naxariistiisa jannada oo uu jannatul firdaws ku abaalmariyo ninkii masaajidkan dhisay ee madaxweynihii hore ee dalka Liibiya Muammar al-Qaddafi. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. sida aan idin sheegay marka masaajidka la soo booqdo waxyaabaha dadka u suurtageli kara waxaa ka mid ah in manaaradda dheer ee masaajidka uu qofka fuulo oo magaalada Kampala kor ka arka. marka hadda waxaan gelaynaa manaaradda fuulaynaa insha Allah taala. nala socda. متحدين ضلال المبطلين جاهدين أن يسود المسلمون مسلمون. نحن بالإسلام كنا خير معشر، وحكمنا باسمه كسرى وقيصر، وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر، ونشرنا في الورى الله أكبر. فاسألوا إن كنتم لا تعلمون. مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. مسلمون سائلوا التاريخ عنا ما وعى، من حمى حق فقير ضيعا، من بنى للعلم صرحا أرفعا، من أقام الدين والدنيا معا. سائلوه سيجيب المسلمون. مسلمون. نحن بالإيمان أحيينا القلوب، نحن بالإسلام حررنا الشعوب، نحن بالقرآن قومنا العيوب، وانطلقنا في الشمال والجنوب. maanta waxaan gaarnay halka u sarreysa manaaradda masjidka Qaddafi ee magaalada Kampala dalka Uganda. maasha Allah caawiye qofka marka halkan uu soo gaaro waxaad moodaa magaalada dhan hoostaada imaanaysaa.
guri guri iyo xaafad xaafad si qof diyaarad saaran oo kale meel kore ayaad ka arkaysaa magaalada marka waxaa weeye si fiican u daawada sawirka aan maanta meeshaan ka soo qaadayno waa mid muujinaya magaalada Kampala dhinacyaheeda oo dhan iyo siday u samaysan tahay iyo xaafadaheeda iyo meelaha jidadkeeda si u kala baxayaan waxaad garanaysaa marka masjidkan la sawiro waxaad ka arki doontaa inuu ku yaalo meel magaalada wadnaheeda ah wadnaha magaaladu ku yaala meel wuxuu ku yaala runtii qof kasta uu majaranaya sida meeshaan masaajidka loogu helay ama loogu calaamadeeyay marka cidii gacan ka geysato oo dhan Ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo تحدين ضلال المبطلين جاهدين أن يسود المسلمون مسلمون نحن بالإسلام كنا خير معشر وحكمنا باسمه كسرى وقيصر وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر ونشرنا في الورى الله أكبر فاسألوا إن كنتم لا تعلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنون مسلمون سائلوا التاريخ عنا